qaadcul dariiqiinta iyo xoolaqaadka ubo laakiin waxaa hubaal ah in dadka waxa dhibay dadka dhibaataysan ee aaga ku dhaqanaya in badan oo la mid ah oo ku dhaqan gobolada deegaanka waa kooxda budcada ee ubo ee u bareertay dhaca iyo waliba dhiiga shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo dhibaatooyin badan u geysatay hadaba waxa geela dhaca ee dadka dhibaateeya ayaa waxa ay yihiin kooxdaasi dhawaantana waxa weeye ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida sida uu ku sheegay munaasabadii Ciidul Fidriga ee dhaweyd khudbadii madaxweynaha waxyaabihii ugu waaweynaa oo ku soo qaatay ayaa waxa kamid ahayd xoolaha geela u badan ee laga dhacay shacabka deegaanka Soomaalida ee markaasi ay ka dhaceen qaadcul dariiqiinta iyo xoolaqaadka ubo